Masuliyinta kala duwan ee dawladda hoose degmada Burco ayaa saadka Daah Furay Qandaraskii Labaad ee laga hirgeliyay degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana uu horgaaminayay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco Cabdirasaaq Ibrahim Cabdi Hiro gudoomiyaha ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Mukhtaar Baariyere xogayaha fulinta dawladda hoose waxaana ka soo qayb galay 11 shirkadood oo ku tartami doona qandaraskan laga hirgelin doona degmada Burco ayaa wuxuu u dhiganaa sida tan wadada isku xidha October wadada xaafadda Caqiibo wadada kantaroolka bari ilaa waxaana ku tartamaya 11 shirkadood Masuliyinta kala duwan ee halkaasi ka hadashina waxaadaladoodii kamid ahaa sida tan mashruuc hadii Ilaahay raali ka noqdo ee kala ah wadada October iyo wadada Caqiibo qaybta labaad waxa weeye zeeroga ilaa iyo huleelka la yiraahdo isha Burco anagu si transparency insha Allah ta'ala waxaan gudiga qandaraasyada dawladda hoose u eegayaan labada wado maanta tartankooda halkan u fadhina waxa weeyaan wadada October ee ka bilaabmaysa Labaad ilaa maayo aadan cadde iyo wadada loo yaqaano xaafadda u baxda Caqiibo ama sidoo dadku wada yaqaanaan Cuqubo wadada saddexaad iyaduna soo raacaysa waxa weeye wadada aan doon rebeeran garayno Mansoor ilaa hoteelka Isha Burco laamiga caadiga ah dheerweeye aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cid kastoo tartankaas soo xareysatay oo doonaysa inay ku guuleysato dhamaanteen guuleysan mayno laakiinse qaybo kamid ah baa guuleysanaya ka bari guuleysto wax laga yaabaa inuu maalintii ku xigto guuleysto sidaas bay insha Allah inoogu soconaysaa runtii horena waan u sheegnay anagu waxaan maanta diyaar u nahay in wax walba oo soo maraan sida u baahino oo aanan cid gaar ah aanan u siinin oo kooto ugu xidhin shirkad kastoo guuleysata inay wax quality noo dhisto oo anaguna insha Allah ta'ala aanu dawgal xoogan ku sameynano maadaama oo jidadku yihiin halbowlihii bulshada shirkadahana waxaan u sheegaynaa inaan sida Daah Furan u sameynayno wax walba guud ahaan shacabkana waxaan u sheegaynaa labadan wado ee taa isku dhafanaya taa kaleba waxa sameynaysa dawladda hoose labadii hore waxay sameynayay mashruuca JBLG-ga oo dabcan aanu ku leenahay annaguna qayb qaadana marka kuwan saafi dawladda hoose u maalgelinaysa waxaan bulshada u sheegaynaa waa lacagta haysaan ee cashuurtayada ah weeyaan ta lagu sameynaya marka walaalahay waxaad ka codsanaysaa cashuurta bixisaan wadada saad u sameyso haddii aanad helaynin qaadanaad ku darsato dawladda hoose ku caawiso si wadooyin qurux badan oo wanaagsan u dhisano waxaan ka codsanaynaa oo qura inaad cashuurta bixisid si aan wadooyinka iyo kuwa kale ee dhiman iyo saldhigyada iyo xanaanooyinka baan u sameeyno sanadkii hal mar oo cashuurta taasoo caafimaadkaaga iyo wadada iyo qashinka iyo ammaanka iyo waxaas oo dhan laga shaqeynaya inaad bixiso ayay kugu adkaani marka waxaan ka doonaynaa waan ognahay in cashuur badan magaalada lagu leeyahay haddaad qaadhaan nagu biirin karin cashuurta iska bixi waxaan kaloo idinku baraarujinaynaa tayada wadada shirkadaha hadday yihiin iyo hadday bulshada yihiinba ta shirkadaha annaga ilaalinayna oo ku dabagelayna guddi qiimeynaynu sameynayna halkay marayaan waxaan doonaynaa wadooyinkan imka la sameeyay inay ka duwanaadaan wadooyinkii hore oo wada aan jajabin oo gogoyn oo biyuhu xaadhin oo aan meel biyuhu ka baxa lahayn oo meel internetka laga gudbiyo lahayn oo meel biyuhu ka gudbaan lahayn oo meel leerka laga gudbiyo aan lahayn inaan dee aanay dhicin oo haddii cable la marinayo iyo haddii qasabad la marinayaba aan dee la jeexin waxaynu halkan ku furaynaa labadii qandaraas labadan mashruuc oo dhaqaalahooda ay maalgelinayso dakhliga dawladda hoose laga maalgelinayo kabkeeda waxa uu soo tartamay oo saaka halkan fadhiya qandaraaslayaashii iyo wakiiladoodii labada mashruuc ah oo soo tartamay 11 shirkadood sidii wanaagsaneedii hore inoogu dhacday un bay insha Allah u dhici doontaa wallahi mashruuc imka labada mashruuc laba qof ma helaya laba shirkadood ma helaya inta kale ee marka maanta aan helinay inay haniyaan ba sidii awal bay u dhici jirtay ayun ba muhiima Burco waa degmada koowaad ilaa hadda intaan marinay arinta fulisay mashruucan JBLG-gu gabigiisu waa capacity building bilow ilaa dhamaad dawladda hoose capacity-ga la dhisayaa shaqaalaheeda la dhisayaa contractors-ka laftooda la dhisayaa waa Siciid Cali Cusmaan Xaalays telefishinka caalamiga ee gobonnimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer